maamulka Jubbaland ayaa cir iyo dhul iyo bad intuba ka go'doomiyay ciidankii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee la geeyay magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale waxa ay maamulka Jubbaland ay meel banaanka ka ah Raaskambooni ama magaalo u dhow ay ku rakibteen hubka culus ee lidka diyaaradaha ama hubka culus ee diyaaradaha awooda inay soo ridaan oo ay gacanta ku hayaan. shalayna waxa ogeyn inay isgaarsiintii hawada ka saareen oo Raaskambooni aysan jirin wax mobile oo la wici karo internet iyo mobile caadi ah intuba. Sidaan xog ku helnay waxaan ogaanay in Jubbaland gaadiidka hubka culus ku xiran yahay ee suuga loo yaqaano inay ku rakibteen halka loo yaqaano Buurgaabo oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose kuna dhow magaalada Raaskambooni ee gobolkaas. waxayna Jubbaland ay rabtaa inay soo rido diyaarad kasta oo u doosha ama ku degta magaalada Raaskambooni oo ay ciidanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay joogaan. horana waxay ka go'doomisay dhinaca badda raashinkii iyo sidoo kale waxyaabihii kale ee adeega ah ay uga imaan jiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. iyadoo intaasina ay sii dheertaa in sidoo kale la geliyay go'doomin dhinaca isgaarsiinta ah. saddexdaas meel ayay ka go'doonsan ciidanka dawladda ee la geeyay Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose. shalay warqad ka soo baxday maamulka Jubbaland waxaa digniin loogu diray dhammaan shirkadaha duulimaadka waxayna Raaskambooni ku tilmaameen ag dagaal oo aanay diyaaraduhu tagi karin. qoraalka wuxuu ka soo baxay maamulka Jubbaland gaar ahaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Jubbaland waxayna taariikhdu ahayd markii ay soo bixisay 2 bisha December oo shalay ku beegan. waxayna ahayd ujeedo digniin. dawladda Jubbaland waxay uga digaysaa dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala Soomaaliya inay ka degaan garoonka diyaaradaha ee Raaskambooni. deegaankaas wuxuu ku jiraa xaalad colaadeed oo halis ah taasoo keeni karta khatar weyn oo dhinaca amniga ah. shirkadii ka dhaga adeegta digniinta iyada ayaa qaadi doonto mas'uuliyadda wixii ka dhasha ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shalay Jubbaland. sidaas darteed waxaa la farayaa dhammaan shirkadaha diyaaradaha inay u hoggaansamaan digniintan kana fogaadaan in ay wax duulimaad ah ka sameeyaan aagaas si loo ilaaliyo badqabka dadka iyo hantida Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maamul goboleedka Jubbaland wasaaradda gaadiidka duulista waa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. waxaa ku saxiixan Cabdullaahi Dubbad-Shiil waana wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowlad goboleedka Jubbaland. diyaaradaha militariga ama diyaaradaha ay ciidanku isticmaalaan ayaa sidoo kale ka degi karin Raaskambooni. kuwa rayadka ama ciidamo wada ama sahay wada ayaa sidoo kale ka degi karin. isgaarsiintiina waa ay ka go'an tahay oo wax ma wici karaan lamana wici karo. sidoo kalena doomihii Kismaayo ka imaan jiray ama xeebaha kale ee Jubbada Hoose ayaa sidoo kale loo diiday in halkaas ay tagaan taasoo ka dhigan in Jubbaland ay xaalad go'doon ah ay gelisay ciidankii dawladda ee la geeyay Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose. diyaaradahaasi haddii ay ka degaan halkaas waxay mutaysan karaan khatar amni oo weyn sababtoo ah gaadiidka hubka culus ku xiran yahay ee suuga loo yaqaano oo awooda inay diyaaraduhu soo ridaan ayaa lagu rakibay aagaasi meelo ka agdhow. waxaana ay Jubbaland diyaar u tahay sida ay sheegtay in diyaaradda halkaasi timaado la duqeeyo. dhibaatadii ka timaadana waxay Jubbaland qoraalka ay soo saartay ku sheegtay inay qaadi doonaan shirkadaha duulimaadka Soomaaliya oo ay xal digniin u direen. arrintan waxa ay xaalad adag ay gelin kartaa ciidanka dawladda ee militariga Soomaaliya ka tirsan ee la geeyay Raaskambooni kuwaas oo ah 200 oo ciidamo ah oo ay dawladdu Muqdisho ka daabushay. lama oga tallaabooyinka ay qaadi doonto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale xataa Jubbaland haddii tallaabooyin kale oo dheeraad ay qaadi karto. hadda ciidankaasi gurmadna ma heli karaan haddii uu dagaal qabsado dhaawacyadoodana lama soo qaadi karo. sahay iyo gargaar wixii u baahdaana sidoo kale ma heli karaan sababtoo ah waxay ku sugan yihiin jasiirad mana jirto aag kale oo dagaal ama meel kale oo jasiiradda ka baxsan oo ay u baxsan karaan ama ay gargaar iyo sahay waxay u baahdaan uga heli karaan. Jubbaland iyo dawladda waxa u dhaxeeya khilaaf adag kaasoo hadda qarka u saaran inuu sababo dagaal dhimasho dhaawac sababa oo labada dhinac soo kala gaara. dadka Soomaalida ee daneeya arrimaha deganaanshaha Jubbaland iyo dawladda federaalka ah ayaa dawladda ugu baaqay in ay xaalad dejiso halka Jubbaland ayadana loogu baaqay inay deganaan muujiso. laakiin waxay u eg tahay in xaaladda maalinta ka dambayso ay ka sii darayso iyadoo la rabo in dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidanka qaranka ka wada tirsan oo Jubbaland iyo dawladda ka mid ah in la iska horkeeno halkaasina isku dhameeyaan. warar ku soo kordha xaaladda Jubbaland waxay kugu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijyada dambe insha Allah. dhinaca kale, ciidanka dawladda federaalka ah ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig militari oo ku yaala deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose. ciidanka dawladda ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig militari oo ku yaala deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalad saqdi dhexe waxa ay weerar ay ku qaadeen xaafadda loo yaqaan Kalluunka oo ka tirsan degmada Waabari ee gobolka Banaadir kuna dhow garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee Muqdisho. xaafadaas oo ah dhul ay dowladdu leedahay waxaa degan qoysas badan oo dad dan yar u badan waxaana muddooyinkii la soo dhaafay loogu baaqayay in guryahaas ay ka guuraan ma dhicin waxaana jira banaanbaxyo ay qabteen iyagoo dalbanay in la siiyo deegaan iyo meel kale oo ay ku noolaadaan haddii halkan ka baxaan oo aysan heli karin meel kale oo ay dadkaasi ku noolaadaan ama ay degaan. xaalad saqdi dhexe ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka booliiska waxay galeen xaafadaas waxaana muuqaalo la soo qabtay oo warbaahinta lala wadaagay lagu arkayay boqolaal qoysas ah oo si xoog ah looga saarayo guryaha ay deganaayeen iyo sidoo kale caruur da'da 10 sano ka yar ama caruur saqiir ah iyo dad waayeel ah oo xalay goor dambe oo ay ku beegnay 8 saac oo habeenimo laga soo bixiyo guryahooda oo jidadka taagan kuwaas oo aan ogeyn hal ay hooyaad ka dhigtaan iyo meel ay sal dhigtaan haddii guryaha laga saaray. ma jiro wax war ah oo dhinaca dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka soo baxay oo arrinta ku saabsan laakiin waxa ay dowladdu muddooyinkii la soo dhaafay ay waday barakicin dhulka dowladda ah oo dadka degan ee dowladda Soomaaliya weerar ku qaadisay. sidoo kale habeen saq dhexe waxaa la weeraray dadkii deganaa xaafado ka tirsan degmada Hodan iyo sidoo kale degmada Wadajir ee gobolka Banaadir gaar ahaan aagga Saybiyaano halkaas oo qoysas boqolaal ah gaaraya dowladdu ay xoog uga bixisay. sidoo kale xaafadda Kalluunka waa meel kale iyo aag kale oo cusub oo dadkii deganaa xoog looga saaray si lamida waxa laga saaray dadkii deganaa xaafado kamid ah degmada waa degmada Boondheere ee gobolka Banaadir oo ayagana qoysaskii deganaa ay dowladda Soomaaliya gurihii ay ku noolaayeen oo ah dhul dowladeed xoog uga saaray oo burburin ku sameysay si lamida Shibis ayaa dad laga saaray Shangaanina waa laga saaray oo hadda waxay haystaan digniintii ugu dambeysay lamana oga dhammaan dadkaasi noloshooda sida noqon doonto dad badan waxay qabaan in xaalad adag ay wajihi karaan dadkan oo u badan qoysas dan yar oo barakacyaal oo cooshash iyo jiingado ay ka dhex sameysteen dhulkaasi deganaa dhulka ay dowladdu ka saarayso dadka barakacyaasha ama danta yar ah waxaa la sheegaa inaysan dowladdu ayada anficin oo ayada waxba ku qabsanin laakiin ganacsato iyo dad kale oo tujaariin ah oo Ilaahay hanti siiyay laga iibiyay dabadeedna ay rabaan in halkaas ay hanti ku sameystaan si lamida qaarkoodna waxaa la sheegaa in dad siyaasiyiin dowladdu oo xildhibaano u badan inay ku xalisay si ay ugu meel mariyaan shuruuc iyo xeerar baarlamaanka la horgeeyay. aad ayaa loo hadalayaa dhacdadan maanta waxayna sidoo kale ku soo aaday iyadoo shalay dhacdo kale oo dowladdu sameysay aad loo hadalaya kadib markii General Gordon Allah u naxariistay janankii awoodda badnaa ee militariga Soomaaliya xeradii uu ku magacaabnaa ee Gordon laga bedelay nin ajnabi ahna lagu qoray magacaas inkastoo markii dambe oo social media xoog badan uu sameeyay iyo qeylaan ay dowladdu soo saartay isla warqad kale oo taariikhda dib loo dhigay oo isku taariikh laga dhigay tii hore laguna bedelay generalka in magaciisa la geeyay xero kale oo lagu magacaabo Ex Damaayo. sheekooyinkaas ama wararkaas ayaa Soomaaliya ugu waaweyn wixii dhacdooyin iyo warar ay ku soo kordhana halkan idin kugu soo gudbi doonaa idinna waad ka mid noqon kartaa dadka ugu horeeya ee heli doona dhacdooyinkan haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran muuqaalkana la wadaaga asxaabtaada aragtidaadana qaybta hoose commentiga ama faalada ku reeb aad iyo aad waa mahadsantahay.